iyadoo ay maanta ahayd maalin ciid ah isla markaana ay muslimiinta dunidu u dareereen salaada ciid ayaa magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga xusay munaasabada ciid taasi oo ay maanta dadweyne aad u tiro badan oo kor u dhaafaya boqolaal dadweyne ahi salaada ku oogeen garoonka koowaad ee kubadda cagta magaalada Caynaba ee Saraar Stadium isla markaana ay kala qayb galeen mas'uuliyiinta heer gobol iyo mid degmo culimada waaweyn ee gobolka waxaana ay markii ay salaadu soo dhamaatay halkaasi duco dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyay Sheekh Cali Jaamac bootaan maayirka degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan oo isna ka mid ah mas'uuliyiintan kala qayb galay munaasabada salaada Ciidul Fidriga ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliland wuxuuna maayirku ka digay goynta iyo gubidda dhirta qoyan xirashada seerayaasha sida khaldan loo ootay iyo waxyaabo kale waxaan leeyahay dhulkii waa la xaalufinaya dadinta gubaya oo digadii xoolo dhigan raacinaya waxaan leeyahay arrinta isgaarsiiya masaa'ibtaas hadday lagu furto dhirta way naga dhamaanaysaa dadka dhuxusha leh ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu wax soo kale ugu bedelo iyagana waxaan ka codsanaynaa in dhirta ka daayaan qodobka kale waxaan leeyahay dadka keena bacaha xoolihii wax kale ma haysano beeramalihin warsharamalihin waxa inoo xoolaa oo inoo dada oo inoo duuyo aynu ku noolahay ilaahay inagu irsaaqay xoolaha barasaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali iyo hambalyo uu dirayo dhammaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Saraar ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisa markii ay salaada Ciidul Fidrigu soo dhamaatay ayaa uu TV-ga caalamiga ee Somali Channel mikrofoonka la dhex qaaday dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira caruur caamo iyo ciroole kuwaas oo hambalyooyin kala duwan hawada u soo marinayay walaalahooda ku kala nool daafaha dunida سلام يا دمان بشعب جمهورية الصومال ملك استقبال الهاي مروي مدوا وهري سلام يا مدحنا جمهورية الصومال مدن أحمد محمد سلايو وحنا الله عيد جمهورية الصومال وحنا كسلام مدحنا جمهورية الصومال أحمد محمد سلايو وحنا كسلام يا أمة المسلمين ما يستأجرون كل عام وأنتم بخير بان العيد لما تدوينها كنا ولدافع الدنيا يا مسلم كا وحنا كسلام يا تدوينها الصومال وعقران السلام يا مدحونا جمهورية الصومال مدن أحمد محمد سينايو يا مدحونا وفيركا مدن عبد الرحمن إسماعيل فيعي وعقران السلام يا مدن مدحونها وحنا لا إلهي سلسلة كانوا قاسيو بش يبروا كل عام وأنتم بخير. فرح وعن سلام يا هوي يا أباي وراهي دمان مسلمين تا أردن الصومال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرزاق محمود عود تمام السلام يا جماعة السلام بشير سلام باشا يعيد كستو مقعايا قرانيسا وحانا حنباليو درايا دمان شعبك الصوماليات ميل كستو يشوغان وحاليا كل عام وانتم بخير وحاكا كسلام يا دمان دوينها مسلمين دا ميل كستو يشوغان قران وحاكا كسلام يا صاحبك مستر قلد وحاكا كسلام يا كلي ياسين إبراهيم فرعي وحاكا كسلام يا محمد مرتضى حسن وحاكا كسلام يا كان أب قلبتشوف القبر كعينما كسوغان ودك دنيا دعلده waxaan kaloo salaamayaa salaam nuur ee taagan si kastaba ha ahaatee sanadkani munaasabada ciid ayaa ku soo beegantay xilli qiimaha sarifka dollarka hoos u dhac weyn ku yimi isla markaana ay maciishadu cirka isku shareertay walow ay jiraan dad dan yar ah oo aan iyagu la ciidin walaalahooda muslimka ah isla markaana farxadda la wadaagin maxamed aadan dirir TV-ga caalamiga ee Somali Channel magaalada Caynaba.